السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان walaalaha ku xiran kanaalka waxaan bilaabi doonaa mowduuc cusub oo ku saabsan qaabkii loo dilay USAAMA bin Laden oo xog cusub laga soo saaray inagoo kasoo xiganayna buug uu qoray qoraaga caanka suufiga caanka Seymour Hersh kaas oo si faahfaahsan inoogu soo geli doona oo aynu waxyaabo badan kaga sii ogaan doono daawasho fiican. maalin Isniin ah oo ay bishu tahay 2 May sanadkii 2011 ayaa koox ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka SEALs loo yaqaan iyagoo ku socda amar toos ah ugana yimid taliska guud ee sirdoonka CIA waxa ay weerar kadis ah ku galeen kambool dhismayaal la degan yahay oo ku yaal magaalada Abbottabad ee dalka Pakistan waxayna ku dhex khaarijiyeen USAAMA bin Laden iyo dad kale oo ay ku jiraan xubno qoyskiisa dhow ah. weerarkan sharci ahaan wuxuu jabiyay xeerkii caalamiga ahaa iyo sharciga qarannimada dalka Pakistan, laakiin haddana khasaaraha goobtaas ka dhacay ee naf iyo maalba lahaa waxaa si diiran ugu sacabtumay dowladda Mareykanka iyo inta badan dowladaha caalamka oo ay ku tilmaameen guul taariikhi ah oo laga gaaray la dagaalanka ururka Al-Qaacida. waxaana la aaminsan yahay in ay tahay sababtii u weyneyd ee madaxweyne Barack Obama u suurtagelisay inuu mar labaad loo doorto doorashadii madaxtinimada ee uu ku helay xilligiisii labaad. 5 sano kadib guusha waxaa ilayskii farxadeed damiyay xog aad uga duwan tii uu Mareykanku dunida u sheegay oo ka soo baxday dilkii USAAMA bin Laden iyo sidoo uu dhacay. xogahaas waxaa ka mid ah ta uu qoray buugga cusub ee uu soo saaray Seymour Hersh oo ah warfidiyeen xog baadhe iyo qoraal dhinaca siyaasadda ku caan ah oo abaalmarino badan oo caalami ah helay. Hersh qoraalkan uu ku soo koobay nuxurka warkii uu Mareykanku ku sheegay dilkii USAAMA bin Laden uu been yahay waxa aanu dhaleecayn kulul u soo jeediyay maamulkii madaxweyne Obama iyo madaxweynaha shakhsiyadiisaba isagoo ku eedeeyay inuu khiyaamay dadkii codbixiyaasha Mareykanka iyo shacabkaba oo uu ku beerlaxawsaday halkuu dhigii ahaa isbedel. Hersh waxa uu ku eedeeyay madaxweyne Obama inuu ku fashilmay inuu gaaro kaalintii ay ka rabeen muwaadiniinta Mareykanka ee ahaa in maadaama uu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee Afrikaan ah uu noqon doono madaxweynihii ugu wanaagsanaa ee soo mara Mareykanka. Hersh buuggiisan waxa uu ku soo bandhigayaa dhacdooyin iyo duruufo ku xeeran dilkii USAAMA bin Laden waxa aanu caddeynayaa madow badan oo sanadihii tagay si isdaba joog ah u soo baxayay xaqiiqdii weerarkaas la xidhiidha, kuwaas oo uu sheegay in maamulka Obama uu si ula kac ah u qariyay. dhinaca kale Hersh waxa uu su'aasha kala gelinayaa qaabkii uu USAAMA bin Laden ku joogay Abbottabad. waxa uu isweydiinayaa sida ay ku dhici karto in magaalo yar 64 kiiloomitir u jirta caasimadda Pakistan oo kale uu aamini karo ugana badbaadi karo ninka dunida oo dhan ay wada doonayso ee hogaamiyaha ururka Al-Qaacida waa USAAMA bin Laden. dilkii USAAMA bin Laden wuxuu ku soo bandhigay xog beeninaysa sheegashadii Mareykanka ee ahayd sababtii ay USAAMA bin Laden ay nolol ugu qaban waayeen ay tahay in USAAMA isdifaacay oo uu iska caabin weyn kala hor yimid. waxaa kale oo Hersh baaritaankiisa ku beeniyay warkii Mareykanku sheegay ee ahaa in aanay cidi la ogeyn weerarkaas xitaa in laga qariyay Pakistan. beenta ugu cadi waa in saraakiishii ugu sareysay militariga Pakistan Generaal Ashraf Barfel iyo Generaal Ahmed Basha oo ahaa agaasimihii guud ee sirdoonka Pakistan aan la ogeysiin wax howlgalka Mareykanka khuseeya ah. siduu buuggiisan ku caddeeyay wuxuu helay xog ah in ay gacan ka geysteen dowladda Pakistan howlgalkaas si gaar ahna ay uga qayb qaateen sirdoonka waddanka Pakistan. Hersh wuxuu ku dooday sababta ay Pakistan sidan u sameysay ay u qarisay inay ahayd inay wanaajiyaan xiriirka ay Mareykanka la leeyihiin oo daciifay sanadihii u dambeeyay, iyo sidoo kale inuu ka caawiyo caawimooyin xagga militariga iyo dhaqaalaha ay ka mid yihiin. sidoo kale qaar ka mid ah sirdoonka Pakistan inuu siiyay lacagtii abaalmarinta ahayd ee uu dul saaray USAAMA bin Laden xilligii uu noolaa oo qiimahoodu dhammaa $25 milyan Mareykanka ah. Hersh inta aanu sii gudagelin caddeymaha iyo maragga uu hayo iyo doodaha laf dhabarta u ah buuggiisan waxa uu soo qaadanayaa cadeymo guud
oo uu arko inay marag u noqon karaan, waxaana ka mid ah waraysi uu telefishinka Al Jazeera la yeeshay Azad Dawrani oo ahaa taliyihii sirdoonka Bakistan, oo uu sheegay in Bakistan ay hore u sii ogeyd tallaabadan uu Mareykanku ku khaarijinayo USAAMA iyo qaabkii uu u dhacay weerarkii lagu gelayay gurigii uu deganaa. Waxa kale oo uu soo qaatay warbixin ay weriye lagu magacaabo Carlota Gall oo ka tirsan New York Times ka qortay Afghanistan muddo hadda laga joogo 12 sano, taas ay ku sheegtay in mas'uul Bakistaan ah uu si toos ah ugu warramay in taliyaha sirdoonka Bakistan uu hore u sii ogaa howlgalkaas uu Mareykanku ku fulinayo Usaama bin Laden. Waxa uu isna soo qaatay buugga uu qoray Imtiyaaz, oo ahaa agaasimihii fulinta ee xarunta cilmi baadhista iyo daraasadda amniga ee Bakistan, waxaana uu buuggiisan ku xusay in 4 mas'uul oo ka tirsan sirdoonka Bakistan uu la sheekaystay ay dhammaantood u xaqiijiyeen in laamaha militariga Bakistan iyo sirdoonku ay ka war hayeen howlgalkan lagu dilay Usaama bin Laden.